haweeney waayeel ah oo dalka Ingiriiska u dhalatay ayaa waxa u suurta gashay inay riyadeeda nolosha ay xaqiijiso kadib markii ay sugaysay xaqiijinteeda muddo qarni ku dhow. Jariirada The Mirror ee ka soo baxda dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in haweeneydan ay dhalatay 1924 lana yiraahdo Gladys ay weligeed ku riyoon jirtay inay marun diyaarad raacdo laga bilaabo xilligii hore ee la bilaabay safarada duulimaadka ee dadka rayidka ah. fursadu maysan saamixin weligeed inay diyaarad raacdo, waxay arki jirtay diyaarado duulaya iyo kuwa ka soo degaya garoon maxalli ah. xilliyada fasax sanadeedkeeda waxa ay ku safri jirtay gaari ama tariin. markii arrintan ay ka war heleen shaqaalaha guri ay ku nooshahay oo lagu xanaaneeyay dadka waayeelada ah, doonisteeda iyo riyadeeda aan weligeed u dhaboobin ayay waxay u guntadeen sidii ay uga farxin lahaayeen, waxayna arrintan kala kaashadeen shirkadda duulimaadka ee EasyJet iyo airportka London Luton. shaqaalaha guriga xanaanada ay ku nooleed ayaa goostay inay safar u kaxeeyaan oo ay geeyaan goobta loo dalxiiska tago ee badyareedka Jiif ee caanka ah, iyadoo la tixgelinayo rabitaankeeda iyo inay doonaysay inay marun aragto oo ay hadafkeeda nolosha uu ka mid ahaa inay goobtaasi booqato. shirkadda duulimaadka ee EasyJet ayaa u diyaarisay tikid iyo adeega darajada koowaad, iyadoo arrintaani lagu sharfay maadaama ay u rumowday markii ugu horeysay arrinkii ay muddo ku taamaysay. farxad ayay la qaylisay markii ay diyaaradu duushay, waxayna tiri hawada sare ayaan duulayaa, wax walbo oo aan halka hoose ka eego sidii aan moodayay waa ay ka qurux badan yihiin. dadkii safarka ku wehelinayay oo dhan ayay u mahad celisay markii ay aragtay badyareedka Jiif, waxayna ka warbixisay sida ay ula dhacsan tahay wax walba oo ay aragtay maadaama ay u xaqiiqoobeen riyooyinkeedii nolosha ee weligeed ay ku taami jirtay iyada oo sugaysay muddo dheer, maantana ay tahay 95 sano jir. Dalmar Cabduqaadir.